السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان باوين تحبرشدا gaar ahaan ardayda dugsiyada sare ee fasalada koowaad, labaad iyo saddexaad iyo afraadba. halkan waxaan saaka ku qabanaynaa oo aynu waxoogaa ka tilmaamaynaa naxwaha guud ee ah af soomaaliga. way ablaablaynta oo falanqaynta iyo faahfaahinta naxwaha guud ee af soomaaliga. way inteynaan u gelin ereyga naxwe iyo faahfaahintiisa, bal marka hore aynu isku dayno ereyga naxwe maadaama uu yahay af carbeed, muxuu ka noqonayaa ereyada iyo weedhaha afka soomaaliga. way naxwe haddaba waa dhidbaha qotomada ama tiirarka afka soomaaliga. dhidbaha qotomada ama tiirarka afka soomaaliga uu ku taagan yahay. way si guud haddii aynu uga hadalno naxwaha iyo kala duwanaanshiyaha luuqadaha dunida ama afafka dunida, luuqadaha ama afafka tirada badan ee ay bulshooyinka caalamka ku hadlaan, mid kasta oo ka midii waxa ay leedahay habdhismeed loo raaco ama loo adeegsado oo ay eriyadeeda iyo weedhaheeduba u samaysmaan. haba ku kala duwanaadeen dhawaaqa iyo codka loogu yeedho ee habka naxwuhu waa mid ay ka siman yihiin. way marka aynu soo koobno macnaha ujeeddada uu xambaarsan yahay habka naxwuhu lagu qeexaa waa saddexdan qodob ee hoose: qodob koowaad, qodobka labaad iyo qodobka saddexaad. way qodobka koowaad waa xeerka iyo qotomada uu afku taagan yahay, udbaha iyo dhidibada uu afku ku taagan yahay ee laha naxwe. habka iyo hanaanka ay luuqadi leedahay ee loo raaco ayaa la yidhahdaa naxwe. waa habka iyo hanaanka ay luuqadi leedahay ee loo raaco ayaa la yidhaahdaa naxwe. 3 barashada iyo aqoonsiga ereyada iyo weedhahooda ay luuqadi leedahay ama af uu leeyahay, sida ay u dhisan yihiin una sameeyaan macno buuxo oo sax ah, isla markaana laysla yaqaan dhawaaqooda, ku hadlidooda iyo dhigaalkooda qoraalka intaba ayaa la yidhahdaa naxwe. way intaas waa qeexaalkii guud ee naxwaha. haddaba naxwuhu qaybaheedaynu halkan kusoo qaadanaynaa ee buuggeena sanadsiyeedka fasalka afraad cutubka 10aad ee naxwaha. qaybaha aynu kusoo qaadanayno waxaa ka mid ah ujeeddada casharka oo kuu sheegaysa waxa aynu ku baran doono ayaa waxayna leedahay casharkan waxa aynu ku baran doonaa naxwaha afka soomaaliga, gaar ahaan magaca iyo qaybaha kale ee naxwaha sida 1 magaca oo laamihiisa ay ka sii mid yihiin magaca guud oo la wadaago
oo ah magacii waxa weeye cid badan ka dhexeeya. marka la leeyahay cid badan dad wadara maaha, waa shay walax ama noole ayaa si guud loo yidhaahdaa. way laba magac gaar, shay cid ama noole ayaa gaar u leh wadarta magacyada guud oo qaabka ay jamaca ama wadarta tirada u sameeyaan. laba waa magacu yaaladii. magac muuqda ayaa laamihiisa ka mida kow, oo magaca muuqda marka la leeyahay waa marka cidda magacaas la yidhaahdo la taaban karo lana arki karo. way waa la taaban karo lana arki karo cidda magacan la yidhaahdo. way laba magac dahsoon. oo ah in magacaa cidda la yidhaahdo ay waxa weeye qarsoon tahay ama aan la arki karin. waayo qodobka saddexaad waa falalka. qodobka afraad waxa weeye sifada ama tibaaxaha. tibaax tilmaan ama sifaale. qodobka shanaad waxa weeye horgalayaasha. ereyada horgalayaasha ee magacyada ama tilmaamaha ka horeeya si ay magac kale u sameeyaan. waaga dibgalayaasha iyana inagu xiga qodobka lixaada, waana kuwan iyaga oo mid waliba gaarkiisa u faahfaahsan yahay. way haddaba balanayno magac. waa maxay magacu? magacu waa erey loo bixiyo, la yidhaahdo ama loogu yeedho oo loo yaqaan noole ama ma noole. calaamadaas waxay u taagan tahay ama qoqob baa la habeynu nidho hore usoo sheegnay markaynu sumadaha dhiganaynay. waayo noole ama ma noole sida dad, xoolo, xayawaanada kala duwan ee berri iyo badba leh, ama walxaha ma noolaha ah sida ciidda, dhagaxa, dhirta, hawada, biyaha iyo wixii la mida. way waxa kale oo iyana magaca yeelan kara xaaladaha ama arrimaha dahsoon ee aan taabashada lahayn. waxyaabaha aan taabashada lahayn macnihii aan qofku isuna arki karin lana taaban karin oo aan waxa weeye wax muuqda ahayn, balse dareenkooda uu leeyahay qofku macnaha la dareemi karo. qabow oo kale, kuleyl oo kale malaha taabasho. way astaamaha magaca. astaamaha marka la sheegayo waxa weeye waa qodobo magaca ka sunta ereyada kale ama weeraha kale afka soomaaliga. sumadaha magaca af soomaaliga ah ka sooca ereyada kale waxaa ka mid ah caynka ama jinsiga. caynka ama jinsiga waxa weeye magacan ciddan la yidhaahdaa ma labbaa mise waa dhadig, ma noole labbaa ama waxa weeye alxaaya kale ma nooleyaasha ee loogu dhawaaqo laba ma dhadig ahaan mise waxa weeye dhadig. way oo ah in uu lab ama dhadig mid uu yahay magacu. qodob oo ka labaad ah. qodob waa erey ama ereeyo caddeeya dhadignimada ama labnimada magacaas. ereygaas xagga dambe ka raacaa magaca si loogu qeexo
oo ay tibaax uga bixiso waxaana marka la sheegaya inuu yahay lab iyo inuu yahay dhedig way oo ah inuu qodob ku raaco magaca. waxaa ka mid a halkan iminka qodob baa inoo yaala qodob intaynan kacdaa u gelin kacdaa intaynan u gelin halkaa waxaa inoo yaala qodob qodob marka uu keligii yahay lab iyo dhadig maad carifin balse waxaa kuu carifay oo kuu sii qeexay ka qodob ka inuu lab yahay magacan ayuu kuu sheegay halka isagoo dhadig ay tan hoose tahay wadar markii hore muxuu ahaa kelibu ahaa magac guud oo keliyabu ahaa marka lagu daro qodobka oo ah ta magacii uu dhedidkeenaaday wadarta marka lagu leeyahay qodob oo qaabkaas waayo qodob oo ah inuu raaco qodob magacaway wadarta oo ah inuu wadar yeesho magaco yani jamciyo inuu yeesho iyo mid keligii iyo wadar inuu yeesho tiro waayo haddaba balka koowaad aynu soo qaadana saddexda qodob jinsiga ama caynta magaca guud yeesho waayo jinsiga ama caynta uu qaato magaca ama yeesho ereyga magaca guud ee kelida ahi waa labnimada iyo dhadignimada taas oo magaca guud oo kasta kelina ahi uu noqonayo labadaa mid ahaan macnaa lab iyo dhadig buu sheegaya labadaa sheegaya waxaana muujiya oo lagu kala gartaa hadba qodobka uu sito ama qaato magac kasta ma qodob dhadig buu wataa ma qodob lab buu wataa keebuu raacaya saas baad markaa ku kala garanaysaa in waxa weeye lab iyo dhadig ku yahay waaga haddaynu hore uga socono aynu tusaale ahaan soo qaadano waayo halkan waxaa inoo yaallaa lab halkan waxaa inoo yaalla magacyo dhadig waayo magacyadaa lab kuwani meesha inoogu yaallaa waxaa weeye waa magacyo guud oo aan qoraalkoodu kala duwaneyn balse ku kala duwan laba qodob oo kale ah qodobka raacaya ee lagu dari doono iyo carab jalqinta waa dhadhansiga dhawaaqa qofku marka uu ku dhawaaqayo ereyada noocana isagaa iyo ugu dhawaaqa lab ama dhadig way waxaa ka mid ah kow qaybta labta beer weyl waxar inan dameer bal dhadigana haddaba aan hayno beer wiil way waxar waa waxar aye inaan waxaynagu xigta inaan way haddii aynu kasoo gudubno oo aynu usoo gudubno qodob ama qodobada ay magacyada guud ee kelida ay qaataan waa maxay qodobka ama qodobada ay ereyada magacyada guud ee kelida ay qaataan qodobka ay magacyada guud ee kelida ay qaataan waa xaraf ama xarfo xagga dambe ka raaca magaca kuwaas oo caddeeya magacnimada ereygaas isla markaana tilmaama jinsiga ama caynta uu magacaasi u taagan yahay macnaha
lab ama dhadigka u taagan yahay ama uu ku abtirsanayo. erayadan waa erayo magaca caddeeya inuu lab yahay inuu dhadig yahay. way bal tusaalayaashan aynu hoos kaga fogano iyo inta ay yihiin. way tirada qodobada waa imise qodobada magacyada guud ee kelida ay yeeshaan. tirada qodobada magacyada guud ay yeeshaan weli ma sugnaa oo layslama meel dhigin. sababta taas keentayna waa qoraalka afkeena oo ay qabyo badani ku jirto una baahan in sixid iyo tifaftir dib loogu sameeyo. hase yeeshee waxaa hubaal ah inay jiraan saddex qodob oo dhadig iyo qodobka a oo labada jinsiba ka tirsan. marka la leeyahay labada jinsiba ka tirsan, labna wuu raaci karaa magac laba, dhadigna wuu raaci karaa magac dhadigna wuu raaci karaa. way waana kuwan dhammaantood hoos ku muujisan. bal haddaba aan eegno saddexda qodob ee lab iyo saddex qodob oo dhadig iyo qodobka a oo ka dhexeeya labadaba. way tusaale halkan waxaa inoogu yaallaa qodobada labka, saddexdii qodob ee lab. halkana waxaa inoogu yaallaa qodobkii dhadig ee a. halkana waxaa inoogu yaallaa qodobka a oo ka dhexeeya labadaba. halkana waxaa inoo yaallaa saddexdii qodob ee dhadiga oo waa saddex qodob oo lab, qodobka a oo ka dhexeeya labadaba, qodobada dhadig oo saddex aya. way mid waliba wuxuu leeyahay midab gaar ah ayuu mid waliba leeyahay. way qodobada lab waxaa ka mid ah qodobka qa iyo qoqob. waxaan soo gaabiyey qodobka ka. marka qodobka kan buu noqonaya, kadaas noqonaya. qodobka ge, qodobka he. saddexdaa qodob way lab yihiin. way ninka, guriga, tukaha, karka, warka ama wanka, cirka, dhulka, furka, sanka, dabka, colka ama qolka iyo codka. guriga, qoriga, odayga, dugsiga, diiga, cushiga, haragga, lowga, iliga, lebiga, tukaha, baraha, furaha, lolaha, cunaha, dhuraha, soofaha, xakamaha, aabbaha, hurdaha, dooxa, suuqa, saca, laydha, muruqa, madaxa, biiqa, fooxa, dhagaxa, laydha. qodobkani waa qodobkii a ee ka dhexeeyey labadaba. bal haddee dooxa wuu lab yahay, ana waa raacday. suuqa waa lab uu raacay. saca magacu dhawaaq ahaan magacu waa lab, laakiin waxaa loo bixiyaa noole dhadig. laydha kan baa dhadigo toosu dhadig, magaca dhadiga laydha. muruqa waa lab yahay, madaxa waa lab yahay, biiqa waa lab yahay, fooxa waa lab yahay, dhagaxa waa lab yahay, haydha waa dhadig yahay. way saddexdii qodob ee tooska u dhadignaa ayaynu soo qaadanayna. ta iyo da iyo sha, saddexdaa qodob bay qaataan dhadig. way lugta naagta buu soo qaatay, beerta, qoorta, farta, tuurta, xeebta, laabta, gacanta, daarta, badda, laxda, rida, ubbada,
cadhada, xabadda, way kubadda, ooda, looda, cida. shaad aynu soo qaadana. shaad waxay kaga duwan tahay magac kasta uu marka uu keligii taagan yahay, intaan qodob ahaan loo raacay, magacu marka uu keligii taagan yahay u dambeeyo shibanaha la. magac kasta oo guud oo keli ah oo u dambeeyo shibanaha la waxa uu noqonayaa sha baa raacaya. la-dii u dambeysana meesha way ka baxaysaa. maqal bay ahayd, saa maqasha laga dhigay. il bay ahayd, saa isha laga dhigay. hal bay ahayd, saa hasha laga dhigay. dhal bay ahayd, saa dhasha laga dhigay. weyl bay ahayd ama weyl bay markaa halkaa dhadigii sooma aragtay ina soo qaadan. weylkii muxuu noqonayaa weylka. wiisha lama odhan weylka, haduu laba ahaan lahaa weylkaa lasoo qaadana. way wiish. nayl baa layidhi, naysha bay noqotay. baal baa layidhi, baasha. kal baa layidhi, kashay noqotay. dhiil bay ahayd, dhiishay noqotay. dhool bay ahayd, dhooshay noqotay. waay allahuma salli calaa maxamed. bal qodobkii saddexaad inaynu gudubna haddaba ee ahaa wadarta magacyada guud. qaybahan magacyada waxaan insha allah geli doonaa, waxaynu gudbaynaa iyo ay ku jirto wadartii magacyada guud iyo ama wadareynta magacyada. cashirka dambe insha allah kusii eegi doonaa. halkaas ayaan ku joojinaynaa saaka cashirkeena koowaad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.